bismillaahi raxmaani raxiim. nabad dhegaystayaal, maantana waxaynu halkan ku wadaagi doonaa qormo aan ugu magac daray il xuma rajadu. waxaanu ka waramaynaa balanbalka baasaha iyo balaayada uu maro qofka jacaylku ku hormaro. had iyo gooraale dhallinyarada haasaawo wadaagta ama sheeka wadaagta marna may dhicin, taariikhduna may warin in si laboodiya jacaylku u wada asiibo. waa ku kala dambayn karaan, waana ku kala horeyn karaan, laakiin si wada jira inta badan lama warin. marka waxaynu ka hadlaynaa qof dhallinyaro ah oo qof jecel, laakiin qofka kale aanu dareemayn. inta aynu ku dhex jirnana heeso iyo suugaanba waynu soo ergisan doonaa. hugunka laabta, heemaalida himilo u eg mid aan suurtoobaynin, hilaadinta ruux aan han badan ku hayn, iyo halaynta naftaada sida inaad marmarka qaarkood u dhaqanto sidii doqonkii qaadato erayo iyo ficilo markii hore aad feer iyo tatooyo ka xigtay. intaasoo astaamoodba waxay u kulmaan ruuxa noloshiisa ka dhex arkaa ruux kale. cumar dhullana waasagii yiri tan iyo iminkiiyo intaan ku aqiin ayaan qura uunka kama ladin, naftayda olol iyo omas baad ku riday, wixii awooda amuuri qabsaday ilaahay kaama dhaafo aakhiro. oo ka turjumaysaa gabar uu jecel yahay balse aan la dareemayn, oo tan iyo maalintii uu bartay inay turuqdo oo tumaatido mooye aanu waxba kala soo tegin. mar kalena waasagii yidhi salaadiiyo soonka waan ka tegoo salaanta kama qaada saaxiibadae, adunbaa sababtaale safiya dhaha. oo muujinaysaa astaamaha uu leeyahay ruuxa wax jecel, sida inuu furfurnaanta lumiyo, bulshadana ka dhex baxo. aniguna maxaan idhi, il xumaan rajadu marka ruux ardal ah oo aan kuu arxamin ku tiraa agjoog, ilaahu qaadir. il xumaan rajadu markay inan qurxoon ama inan qurxoon labada dhanba aynu ka istaagne, oo ilwaadsamida naftu aga tiraa damac kuga ag furo, balse eelka iyo alhumada jirtaa qofna kuu ogeyn aramida galgacal. il xumaan rajadu marka aadan helin ruux oo fihiya kaa dhaya ilmada. il xumaan rajadu marka aad in badan wanaag oofiso aan lagaa asmicin. il xumaan rajadu marka aad in badan wanaag oofiso aan lagaa asmicin. il xumaan rajadu marka eed aan jirin eedaad gunnimo oon lagaaga dhigo. adigu un ammaantan oo maantoo dhan faane balse laguma oga. halkaa waxaa kaaga soo baxaysa mahmahdii soomaalida ee ahayd dad cararaya lama celiye, duunyo cararaysaad celin kardhaa, duunyo cararaysaad soo celin kartee dad hadduu cag furo. waa cibaaro kale. weydiinta aanu shacabweynaha soomaalida uga tegaynaana waxay tahay, naf ruux kala baadi goobi, naf uu boholiyow dilooday, naf biimayn iyo jar taagan, maxaad ku baxnaanin lay. marka waxaynu hoosta ka xariiqnay mar walba in jacaylku uuna laboodi ugu dhicin dhallinyarada,
balse uu qof ku harmaro qofkaasina haddii uuna la dareen iyo gobonimo aanu helin uu khatar ugu jiro xaalado kale. haddana waxaynu kusoo gabagabaynaynaa heesta cabasho ee ismaaciil aarka ee ahayd caku barashadaadii cugashiyo dareenkii caashaqii ka baday cindigayga kama bixin. anigii ayaaba fanaan ismoodayay dadweynow nabadiino qaybta labaad iyo ilxuma rajadu. caku barashadaadii cugashiyo dareenkii caashaqii ka baday cindigayga kama bixin.